بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دمان شعبك قول كالصول قارهان مقالة مدحدة واسعانود وحنقوم بحضغيا شعبك مديسان سيدا مديسان بالجهله maamuus kale sida wada jirka noogu soo dhaweeyay idinkoo isu dhan waxaan runtii aad idinka mahadnaqaya iyadoo ay kubayl tahay oo saacadda aynu joogno aynu garanayno inaydaan haddana maanta cadceedda u adkaysateen walaalayaal waan idiin qadimaya horta waxaan maanta idinku imi iyadoo doorashadii ka arsantay 7 cisho inaan idin weydiisto codkiinna waxaan idinku imi inaan codkiinna idin weydiisto aad baan maqal maxaa igu tidhaahdeen codka waa siisteen إن شاء الله أنا وحن بلغ هذا إن أنا إسبدل كادون إنسان هجاميو وعدالتكم هجاميو هذا الله ينعضه وحن مركب ولا أبيك تحسيدين إياه شرماركي شمال عبدي شلو أو كوجيريودي شلقاري oo ka dhacay cadays oo ka mid ah saraakiisha xisbiga dhalinyarada waxaan ilaahay uga barayaa intii ku dhaawacantayna in shilka uu caafimaad siiyo waxaan kala cambaaraynayaa shalay falkii waxshinimada ahaa ee kulmiye halkan ka sameeyay anigu xabad idima wado caburo idima wado waxaan idin wadaa nabadgelyo 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 Soomaalidu waxay tiraahdaa biyaha horraantooda arkayay dabadooda waa huuba Soomaa ya kulmiye waa arkaysay shalay walaalayaal Soomaaliland waa shacbi isku mid ah waa shacbi deegaanka Ilaahay ku wada abuuray gobolka Sool caasimadiisu waxay ka mid ahayd 6 degmo ee dawladda Ingiriiska Soomaaliland gumaysatay uga wada tagtay 6 degmo maanta way koreen dadkii way bateen magaalooyinkii way bateen degmooyin baa ka farcamay 6 degmo oo walaalaha oo isku taariikha oo isku shacbiya oo is wada dhalay baynu ahay soo saas ma la saarod iyo taariikhdeedu garowe kama tirsaneen sayidna Jabuuti kama tirsaneen laakiin dhamaantii Soomaaliland baynu ahay soo saas ma gobonnimada iyo halgankeeda iyo xoreynta Soomaalilandna taariikhdeeda way wada xasuusanahay Soomaaliland waxa qaadatay gobonnimada 1960 bishii Juun 22keedii Soomaaliland waxa taariikhdeeda waxa dib u soo noqotay 1990kii laakiin labada taariikhood oo Soomaaliland ma leh halkaana kama bilaabmin 60kii kama bilaabmin 1990kiina kuma dhamaanin taariikh ka horeeyay baynu leenahay taariikh kasta oo Soomaaliland lahaydna ama soo ka dhacdo ama sanad ka dhacdo ama awdal ka dhacdo waa taariikh Soomaaliland leedahay taariikhda aad oo Soomaali oo dhan taariikha ee halgankii daraawiishtu xarunteedu wuxuu ahaa gobolka Sool soo saas maaha
halgankaasi waa halgan Somaliland leeyahay oo Soomaali oo dhan u doonayay inuu ku xoreeyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ku dhashay deegaanka Sacmadeeqo degmada Buuhoodle sababtaas maaha xaruntiisu waxay Taleex sababtaas maaha labada taariikhoodba Somaliland ma lahayd daraawiishtu waa taariikh Somaliland leedahay daraawiishtu way ahaayeen annagu qoladan SNMta ka soo jeeda mujaahidiin baanu sheeganaa laakiin mujaahidiintii ugu horeysay dee daraawiishta ahaayeen soo maaha taariikhdeena waynu qoraynaa carruurteena inuu dhigaynaa taariikhdaynu ka bilaabi mayso 1991kii waxay ka bilaabaysaa taariikh kasta oo ay awdal lahayd oo ay sool lahayd oo ay sanaag lahayd oo ay sayla lahayd oo saaxil lahayd boqortooyadii adal bay ka bilaabaysaa waxaynu doonaynaa in carruurteennu aan taariikhda looga sheekaynin in kooban oo keliya laakiin taariikh kasta oo Somaliland lahayd waa taariikh Somaliland lahayd walaalayaal gobolka Sool iyo gobolada bari iyo gobolada galbeedka Somaliland inkastoo dawladnimada ay ku kala horeysay iyo maamulkuba inta badan cabashooyin saami qaybsi ah ayaa laga cawdaa xisbiga wadani waxa ka go'an in gobol kasta helo saamiga waa cadaaladda u leeyahay haddii alla ka dhigo kulmiyaha cusub hadda kulmiyiisi ilaayimaha waa kulmiyaha muuse wuxuu rumaysan yahay in reer Sool marti ku yihiin Somaliland maxaa maraka ah wuxuu yidhi wasiirkii daakhiliga cali warar caddaan uga baryay buu yidhi xagla toosiye markii in madaxweyne xubin ka dhigana wuxuu yidhi xaggaa codiga ma xigo sababtaas maaha ma been baa ka sheegaya hadda isagaa yidhi ama waxba kama sheegin haddana uu idin yimi shalay wuxuu yidhi cod baan idinka doonaya dee meesha codba xagga kamuu soo xigine wuxuu soo dooray shalayka yaa walaalayaal dhowr erey baan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo ay ku kala duwan yihiin wadani iyo kulmiye xisbiga wadani himiladiisu waxa weeye in la dhiso dal midaysan oo xuquuqda muwaadiniintu ay siman yihiin isagu waa kaalada waa idin barayaa wasiirka markaa muuse iyo kulmiye waxay leeyihiin dalka lama lahaa ee waa la kala leeyahay maxaa sababa waxay leeyihiin jeegaantaa waddanka leh inteenna kala raaciyad baynu nahay taa meerkeela annagu waxaanu doonaynaa jeegaanta laftigeedu inay xuquuq inala mida yeelato oo aan iyagana aan la cadaadin laakiin muwaadiniintu ama jeegaan ha sheegto ama wax kale ha sheegto xuquuq isku siman inuu leeyahay ka laascaanood jooga iyo ka ceerigaabo jooga iyo ka saylac jooga annaguna taasaannu aaminsannahay iyaguna waxay aaminsan yihiin in dalka la kala leeyahay kulmiya wuxuu aaminsan yahay in kuraasida la kala leeyahay annagu waxaanu leenahay kuraasida lama kala lahaa anigu reer Sool kama lihi kuraasida dee kii aan ku fadhiyey hadda reer Sool baa ku fadhiya soo maaha hore ka madaxweynahani xaq baa u leediin ka guddoomiye baarlamaanka xaq baa u leediin ka guurtiga xaq baa u leediin
كمحكمة حق بوليدي حيلك سلقنا كنا حق بوليدي حكومة وليس دونه أنا وعربنا حكومة شعبي وحياواه ملوي كان صور شيء في مايستا واللي ودلي هاي اللي دسوا لكن حكومة كلمية حكومة شجاعة من نقول أساسا معها توجد دم بيستا كلمية وإذا هلو بعيه حكامياتك سوساس معها شاين حوقي سوارك تريد اللي يمسوفها تكنيكا بدن بوتي سو معها أنا وحنا قاعد إن أنا نحوق ديكسن أنه ولا هذا هي النبض وحول بكرة ما ينادي الله كريم وهندوينا إذا نعبوره شوي سياسة oo dadka qarciya oo ku wadaqano lamaan deegaanada cabashooyinka jiraan hadii alla ka dhigo markay dawladda wadani timaado waxaanu doonaynaa inaanu dastuurka furo oo aynu Soomaaliland cusub wada dhisano hadii alla yiraahdo waxaanu doonaynaa inaynu dawlad وطني أي فينا إن شاء الله طبعا عشك بعدي أي نقطة الدولة الشعبية ودلية هي وكتر جنته ضريك الشعبية ضلك وهو بهاي هاي سومالي لاند قوة الآن باهي كتير المتشرو دقمان باهي كتير المتشرتو لكن مدنان توحن سنينينا قفكم وهلا وحيابها أساسي قال نوشو كمارمين أو كمد يهي عافماتكم أي كمد يهين بيهو أي كمد هاي وحبر الشرو أي كمد يهي ودويكم قول هاي سمال الله سيدان هروب الله قادني مقالة الله سعانات وأقوى لنوم مهيمة ويبيلاده بيمعان معبته سيدي بلغات كي ما نتورا أنا بلغاتني مشاريع الأول رئيس واحد نقول دونتا إن مجال الله سميه بيه معان جودهان با ودويك وحي البولويين التصاعدك هي فضولين تبلشة هي عمرادة انت با مستقبل كنوع وحكو درسان دولا مشاريع لو أن وطني كنت لقلين وسميه وضد اسكو حدا لا سعانو يكلا بيت لا سعانو يتلح لا سعانو يعرقابو وأنا دوينا نابورو شان يتبوكرو شغو شانتا سنوات وريا مامولك وطني سيانو شغلات وسارو دليرada dhamaan gobolada hadii alla ka dhigo waxaanu tayeyn doonaa waxbarashada sanadkii dhaweeyay 3,000 arday baa dhacay ardaydaasi aqoon la'aan uma dhicin ee laakiin tayeexumada waxbarashada ayay u dhaceen waxaanu wax ka qaban doonaa sicir bararka waxaan ku celinayaa ballanqaadkii ciidanka aanu samaynay waxaanu ciidanka u ballan qaadnay markaanu eegay duruufaha ay ku jiraan iyaga xasaskoodu in 250 loo kordhiyo mushaharooyinka waxaanu u ballan qaadnay inaanu samayno xafiiska xaqsiinta ciidamada la abuuro waxaanu ballan qaadnay
inaannu askariga dhinta ee maanta bilaa xuquuqda lagu ilaawo isagoo shaqo ku dhintay uu xuquuq yeesho waxaannu doonaynaa insha allaahu inaannu gobolka sool ku bilowno inaannu samayno unug nabadgelyada ilaaliya ciidamada qarankana howlahoodii waajibaadkooda ahaa aannu u dayno unugaana waxaannu u bixin doonnaa daraawiish waxaannu dhammaystiri doonnaa heshiisyadii xukuumaddii kulmiye ee qabiyada ahaa ee aanay dhammaystirin ee shacbiga gobollada sool iyo sanaag ay la gashay ay ka mid ahaayeen heshiiskii awrboogays iyo heshiiskii khaatumo labaduba waxaan ku soo gebagabaynayaa duco ilaahay waxaynu ka baryaynaa madar khayr qaba ilaahay waxaan ka baryaynaa madar khayr qaba ilaahay waxaan ka baryaynaa in doorashadu nabadgelyo inoogu dhacdo shacbiga somalilan gaar ahaana taageerayaasha xisbiga waddani waxaannu qabnaa in doorashadii lagu kala badiyey soo saas maaha waxaannu qabnaa in sool codaysay burcana way codaysay cerigaabana way codaysay awdalla way codaysay saaxilla way codaysay hargeysa la isku haysto hargeysana way codaysay kulmiye waxaa laga yaabaa inuu rafad la yimaado rafadkana aynu dul qaadanno ciidamada ammaankan la shaqayno nabadgelyo aynu ku codayno codkaynu ku badinaynaa ee codka aynu ilaashanno saw isbeddelka taageeri mayno saw dareenka shacbiga isbeddelkaa taageeri mayno saw waddani taageeri mayno saw xisbiga rashada taageeri mayno beddeluu بدلوا بدلوا كلمية بدلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.